xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee Islii waxa ku yaala suuqa ugu weyn ee Nairobi oo lagu iibiyo qaybaha kala duwan ee ganacsiga. suuqa oo leh dhismayaal waaweyn oo ka kooban moolal ganacsi, hoteelo iyo maqaayado loo soo taxaashtago. waxa ku yaala dhismayaal kale oo deegaan oo ay ku nool yihiin Soomaali badi ka timid dalkii iyo kuwa kale oo qurbo joog ku ah dalkani Kenya. suuqa Islii ee degmada Kamakunji waxa kula goobo ganacsi oo u soo shaqo taga maalin walbaba kumanaan ganacsato Soomaaliyeed oo qaarkood ganacsigooda horumar weyn ka sameeyay iyo kuwa kale oo iyagu leh ganacsiga soo koraya ee waratada loo yaqaano oo ah midka lagu iibiyo hareeraha wadooyinka, kuwaasoo qaarkood ay la taagan yihiin dadku badeecada ay iibinayaan. ganacsiga ugu badan ee Soomaalidu ay ku leedahay Islii waxa uu soo dukaameysi taga wadamada kale ee dariska la ah Kenya sida Tanzania, Sudan, Uganda iyo kuwa kale. waxaana loo arkaa ganacsiga Soomaalidu ay ka sameysay Islii oo noqday mid 5 sano ugu dambeysay soo kobcayay inuu yahay mid ku jabay tartanka dhexdooda ah Soomaalida, taasoo kaliftay inay jabiyaan qaybaha ganacsigooda marka loo barbar dhigo suuqyada kale ee ku yaala dalka, sida ay qabaan qaar ka mid ah ganacsatada oo aan la sheekaystay. marka laga soo tago xaafadda Islii inay hooy u tahay kumanaan Soomaali oo qaxooti ku ah halkani, haddana ka dukaameysigeeda oo ganacsiga inta badan ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed waxaa halkan u soo doonta qaybaha ganacsiga dad fara badan oo u dhashay wadamada bariga Afrika. inkastoo ay jiraan qoomiyado ay ka mid yihiin Oromada, Ethiopiaanka iyo waliba Kenyaanka oo deegaan weyn ku leh xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee suuqa ganacsi ee Islii, haddana suuqu waxa si xoogan u soo jiitay ganacsiga Soomaalidu ay ku yeelatay dhowr iyo 10 sano la soo dhaafay, kuwaasoo qaarkood ganacsigooda ka keena wadanka Soomaaliya sida dharka dumarku ay xirtaan. marka laga soo tago in Soomaalidu ay sameysay dhismayaal waaweyn oo qaarkood ku kacaya malaayiin dollar oo u badan hoteelo iyo goobo waaweyn oo ganacsi oo soo jiidanaya indhaha dadka, haddana qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidku waxa ay cabasho ballaaran ka muujinayaan burburka lixaad kale ee soo gaaray wadooyinka suuqaasi, kuwaasoo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka oo qaarkood baxirmay. waxaa jiray dhowr bilood ka hor sanadkiina soo dhaafay cashuur diidmo ay ku dhaqaaqeen ganacsatada suuqan iyo waliba guddiga ganacsiga xaafadda Islii oo iskaashanaya, waxaana maxkamad ay isla koreen guddiga ganacsatada iyo dawladda hoose qalinka ay ku dugtay maxkamadda magaalada Nairobi inaanan la bixin karin wax cashuuraada tan iyo inta laga dhisay wadooyinka. inkastoo ay taasi si rasmi ah u dhaqan gelin, wali haddana waxaa jira dhismayaal aan sidaas u badnayn oo ka socda qaar ka mid ah wadooyinka muhiimka u ah xaafadda ka go'aanta inteeda kale, waxaana jira baabuur fara badan oo iyagu xilliga ay dhaafayaan wadooyinka dhibaatooyin fara badan kala kulma xilliyadan oo kale. Sahra Cabdi Axmed, VOA, Nairobi.